أدينك يا أخي كنت ودحلا صلي النبي كسوق جرني إلى يكون سمديد رياض الصالحين لو أخرج جري إلى يكون سمديد علمي ماركتي دلنتس وكريس منفع لها لو أخرج جري وحاصرنا وحارانا نجري لقى ما هلا مساعد كسدان بالجريء لنا أجور باري أو أفرتن سنة أسوق جرها ما أنت ضاب وميل أنجور سنين وزارة ورقتك كاستي سداس درادة أي سدية أي قاضي وزارة إيدو فيرنين جماعتك كله كل من أي واحد سميسي ده كان كلية أي حدلن أي قوان قاضتي culimada waxgaradka haweenka iyo dhammaanba dadka ku nool xaafadda Shaamow ee degmada Xamar Jajab ayaa sameeyay isku soo bax ballaaran kadib markii si xoog looga wareegay halkii masaajid ee ay ku cibaadeysan jireen dadka xaafadan nin ka tirsan culimada wahaabiyada oo warqad ka wata wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta isla markaana ay la socdeen ciidamo ka tirsan dawladda ayay dadka xaafadda sheegeen in uu u yimid masaajidka kadibna uu amar ku siiyay maamulkii masjidka in la joojiyo aqrinta salliga nabigeena iyo muxaadarooyinkii kale ee ka socday masaajidka markii laga diidayna uu si xoog kula wareegay maamulkii masaajidka muddo 2 bilood ah oo ay socotay dacwadda la xiriirta masaajidkan ayay ugu dambeyn qoys ka istaageen dadka xaafadda waxayna sheegeen in uu ninkaasi u adeegsaday awood dawladeed iyo dhaqaale uu ku bixiyay inuu askar iyo qori caaradis ku haysto beedkii alle isla markaana ay istaageen dhammaanba cibaadaadkii ka socday masaajidka sida salaadihii lagu oogi jiray kutubo laga raacan jiray iyo caruurtii quraanka lagu bari jiray waa kuwan culimada waxgaradka hooyooyinka xaafadda oo ka hadlaya arrimahaasi 70 sano 80 sano inta u dhaxaysayeen macal imaanyadooda macal xogaanyadooda ay ayaga dooranayaan amarka ninka u imaaday wasaaraddu warqadka kaastay sidaas daraadeeda ay sidii ayaa qaaday wasaaradda iyadoo fiirinin jamaacadka kale kulmin ay waxa sameysay dadkan kaliya ay hadleen ay go'aan qaadatay saas mal rabin jamaacada kale inay aragto lamada jamaac inay aragto la rabay go'aanka markaas ay qaadato masaajidka intaas oo marxal uu soo maray dib ugu soo maray kor iyo hoos laga dhigi mutanaala laga dhigi wax kasta waa loo qabsaday masaajid wuxuu maanta u baahan yahay asoo diyaar la imaaday dibada laga imaaday معنا مساجد حالك إسلام ما كور خبو واللي يعني ما أركن أنا واللي يعني ما أركن حافظنا ودقنيني موضوع ما أنت سوق إيماني بقعدان مساجد كان هذا هوس تاجرنا أنا أو تاجرنا هني معناه هذا معها هبل هي هبل إنا هبل ربنا إنا هبل ديدنا أنا معها أنا جماعة المساجد كان هني ديجان كحافظنا هني أهل السنة والجماعة أهل الدرقان هني أهل الطريقان هني مساجد ك مركي لاستاجي للا وريجي صلي النبي موليدك وحول الباء أهل الطريقة على مدوها أو خير أها ولا جد ديدي ولا حرمي سبريرة وحنا ولا ده وحاران النجا ما أنت عبشة وحي كوقتنتا كسعتها دولة الصومالية خاصة وحي كسعتها قدوميها قبل كبنادر وحي كسعتها وزارة الدين تي أو خافته وحي كسعتها وزارة العدالة النجا أهل الطريقة نحن هبل مديدنين هبلنا مربنا وحربنا وأهل الطريقة النجا أدينك يا أخي كنت ودحلا صلي النبي كسوق جرني إلى يكون سمديد رياض الصالحين لو أخرج جري إلى يكون سمديد علمي ماركتي دلنتس وكريس منفع لها لو أخرج جري وحاصرنا وحارانا نجري مساعد كحوكي على مساعد محن عن ضاد كنهاي كويا لو حافظ حمر ججب خاصة حافظ شامو ولون سبيش حسن كلوينه أي عن ضاد كنهاي يا دعوة ونقرأ قاطي وحونا ولا مقونية ونور الشكل محنا أود يشعت نور سوق يسنا قال قاتنا دعوة كنهاي عننا مساعد كاس وحا انت السنة عمل جري شيخ لي يراهد ولا دي شيخ محمد قعمي وقعنك قونا مساكين هاي وشيخال قندرشه وحا كرو معناها مساعد وحا لو كري جري معناها دغخ لو كري جري دغخ اسكالها ثمرهن خاصة حافظ يا دست مساعد كو لو غرمدي انت سو معناها وضمن الهي وجماعه حافظه ونذكورا وناثا نين iyo naag bale ayaa masaajidka ka shaqeysay ayaa macnaha dhistay oo maal gilisay masaajid markuu dabaq naqday oo adiga waa kas ma insha Allah quruxdiisa iyo ziinadiisa arkeen dad baan loo yimid masaajidkii dacwo iyo dood noo keenay mar furiya naga qaaday hadana noo soo celiyay hadana mar lamaad awada noo sheegtay anigoo ah Yunus Sheekh Ali Usmaan kamid ah jamaacada masjidka Sheekh Xasan Kalweyn ku yaal xaafadda Shaamow marka waxaan u taaganahay dareenka masjidka iyo arrimihiisa naga haysto waxa kamid ah inaan codkeyga aan u gudbiyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan dal iyo dibadda
maanta anaga dawladeena aad u kalsoonna 100% laakiin waxaan anaga culeys naga soo wajahay arimo ku saabsan masjidka Sheekh Xasan Kalweyne oo anagoo masaajidka arimihiisa hooliisa iska haysano nagala kor keenay masaajidkii inaan anaga gacanteen uu ka baxay oo nala keenay warqad ka socoto degmada dadka degan xaafadda Shaamow ee degmada Xamar Jajab ayaa tan iyo markii lagu qabsaday masaajidkan oo ah mid qadiim ah waxa soo food saaray walaac la xiriira dhanka cibaadada maadaama uu yahay halka masaajid ee xaafadooda ku yaala isla markaana ay ka fog yihiin kuwa kale